su-aasha kolena la weydiiyey ee ku saabsan markaa waxbarashada dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo iyo dugsiga sare Abaarso. dugsigaas runtii waa dugsi ka mid ah dugsiyada elite-ka loo yaqaan ama dugsiyada runtii qiimaha weyn ku leh dalkeena. iyagii markaa dugsiga kale la yiraahdo dugsiga kale SOS oo runtii ardayda ka soo baxdaana markaa dalkan ay ka tilmaaman yihiin caalamkana markaa ay ka tilmaaman yihiin. aqoonta inta la runtii waa aqoon markaa ay u baahan yihiin muwaadiniinta reer Soomaaliya bartaan. inta anagu ognahay wasaaradda waxbarasho ahaan ma jirto cabasho rasmi ah oo soo gaadhay oo ka tilmaamay waalid ama arday ama macallin dugsiga ama jaamacadda wax ka dhiga oo sheegay markaa dhaqan xumo markaa dhaqankeena ka soo jeeda ama diin la faafinayo ka soo jeeda diinteena anaguna runtii ma ogin. laakiin bulshada waxaan ugu bushaareynaa kolley wasaaradaha qaranku waxay leeyihiin markaa waxay kala leeyihiin markaa xilal kala duwan. wasaaradda waxbarashadu waxay ka mas'uul tahay waxbarashada iyo goobaha waxbarashada. wasaaradda diinta iyo waqaaftan horta diinta naga mas'uul tahay. wasaaradda arrimaha gudaha amniga iyo arrimaha gudaha mas'uul naga tahay. wasaarad kastaana runtii waxay leedahay markaa shaqo gaar ah. shaqooyinka iyo markaa xeerarka uu dalku leeyahay iyadoo la waafaqayo qofka markaas sheega markaa war liddu ka markaa qaranka Soomaaliland ama institution ka mid institutionada Soomaaliland ama shakhsi ka mid muwaadiniinta reer Soomaaliland ama cid reer Soomaaliland baa u dhalan cid wax ka sheega runtii isaga cadeynteeda looga baahay ugu horreyn horta cidda markaa shaqadeeda laana talaabadeeda ka qaadi doonta. waxaan u baahanay markaa in qofku hadduu war maqlo ama ay dadku war maqlaan in la iska hubiyo. diinteenna dad islaam baynu nahay dalkeena waa dal markaa islaam ah dadkiisu 100% dastuurkeena qodobka koowaad waxa weeyaan qodobka soo shariicada ka hor imanaya qodobkiisa labaad waxa weeye waa xukuma jiraan. taas markaa waxay sheegaysaa inuu beys u yahay wax kasta diinta islaamku. haddii jiraan markaa cid dembi ka gashay diinta anagu waxaan aaminsanahay markaa dadka jooga ajnabiga ee dalka ka shaqeeya ee sharciga ku jooga iyo kuwa goobaha waxbarashada ka dhigaaba inay shuruucda dalka ku dhaqmaan. heshiiskaas laga saxeexaa wasaaradda shaqagelintu markay siinayso ruqsadda xeerka dalka saxeexan ay ku dhaqmayaan ciddii xeerka dalka jibisa ee talaabo sharci ah dawladdu ka qaadaysa. laakiin ma ahayn propaganda iyo la fidiyo markaa wax dalka amnigiisa khalkhal gelinaya iyo dadka waxbarashada shaki gelinaya. waxaan u baahanay markaa dadkeena la jooga ajnabiga ee dalkeena ka shaqeynaya ee ruqsadda ku jooga ee sharciga ku jooga dawladdu sharciga siisay in la soo dhaweeyo qaxootiga in la soo dhaweeyo in loo dhaqmo markaas shuruucda dalku ay dhigayso. dalkeena runtii waa dal islaam ah diinteena waynu difaacaynaa qarannimadeedana waynu difaacaynaa waxbarashadeena tayadeena waynu difaacaynaa. 80 sano ka hor sano kale markaa Soomaaliland ka dhacday 1940 markii waxbarashada maadiga markaa dalkeena laga hirgelinayay macallinkii weynaa ee aabiha aqoonta Maxamuud Axmed Cali iyo intii la midkeeda calanka u sideen dad fara badan baa ka hor yimid dadku waa gaalaynaysan. maanta iskuuladii beriga lagu talagalay laga furo markaa dalkeena wadamo kale markaa geeska Afrika baa la geeyay oo inagu maanta aqoon u doonno markaa oo dadkeena u doontaan markaa waxbarasho halkii inaga markaa haleedin markay noo soo doontaan markaa diintana waynu baraynaa cilmiga maadiga waynu baraynaa labadaba markaa waxay noo sheegay markaa diinteena oo kii nabigu lahaa idlabul cilmi wala bisin China u doonto nabigu lahaa markaa beriga China dee wadan gaala weyn ilaa berigaana gaale ahayn markaa wuxuu lahaa cilmi u doonta haddii cilmigu ay isku kalifaysan China ka doonataan doonto lahaa markaa qofka hadduu gurigiisa cilmi ku helo ama gaalaha u dhiga ama islaamaha u dhigay waa inuu barto. laakiin lagama aqbalayo markaa cid dhaqan kale ama diin kale faafinaysa dalkeena wax ka dhigan. bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaaha anagoo nabad qabna caafimaad qabna nagu soo celiyay dalkayagii. waxaa nasiib daraa in maalin walba ay 2 inan ama 3 inan ama ina kaliiba uu si joogto ah magac gub ugu sameeyo goobaha waxbarashada. waxaan haddaba doonayaa halkan inaan ka caddeeyo wasaaradda waxbarashadu maxay arrinkaa ka leedahay. kow waa marka koowaad horta dastuurkeennu wuxuu dhigayaa diinta qaranku
inay tahay diinta islaamka oo aan diin kale Soomaaliland lagu faafin karin dastuurkeennii baa dhigay waa qodobka shanaad faqradiisa koowaad waxa kale uu dastuurkeennu waajibiyey xeerarka dalka waxa laga qaadanayaa shareecada islaamka xeer kasta oo shareecada ka hor imanayana waa waxba kama jiraan waa qodobka shanaad faqradiisa labaad qodobka shanaad faqradiisa saddexaadna waxay ku waajibisay dawladda waxay oogaysaa shacairta diinta oo cid inooga lex jecel badan oo inooga ilaalin badan aanay jirin ilaan ina yaro marba intuu soo tooso baraha bulshada hadal soo geliyaa diinteena inaga xigsan maayde cidda ilaalisa waa inaga waajib bay nagu tahay oo diinta laftigeeda bay nagu waajibisay inuu diinta ilaalino diinta iyo dadnimada iyo dalka midna iib ma galo gorgortana ma galo isku rixrix iyo isku ceebayna ma galo ninkii de isaga aqligiisa u taala ninkii isagu uu isticmaalaya mucaaradnimo iyo hebel ku xumee iyo heblaayo ku xumee ninkii uu isticmaalaya ninka de waxyaabaha sheegaya odhanaya diin baa meel lagu dhigaa ama diin kala Soomaaliland lagu faafiyaa horta isaga cadeynteedii laga rabaa dawladda Soomaaliland sharciga waxbarashadana waxa ku yaala jeedada waxbarashadu waxa weeye in la dhiso bulsho ama ummad ku salaysan dhaqanka diinta islaamka aqoon ahaan anshax ahaan iyo edeb ahaanba in kor loo qaado waa qodobka shanaad faqradiisa sagaalaad ee sharciga waxbarashada in kor loo qaado barashada diinta islaamka ee heerarka waxbarashada wasaaraddu iyadoo taa ka duulaysa waxa hore loo dhigi jiray weligeena naqaanay waxaynu ku dhigan jirnay tarbiya diiniya uulo maalintuu ilmaha yar bilaabo iyo ka hor iyo marka xanaanada ku jiraba wuxuu dhigtaa diinta islaamka ilaa iyo heerka ugu sareysa waxaan doonaynaa inaynu halka dadweynaha uga cadayno dugsiyadeenu inay yihiin meelo diinta islaamka lagu barto ee aanay ahayn meel diin kale lagu barto waxa cajiiba inan kaliya ayaa 10kii sano ugu dambeeyay iskuul qura dusha ka saarna oo intaana laha war Soomaaliland ta kale miyay arkayn wixii madaxweyne Soomaaliland soo maray barigu ninkaas bilaabay madaxweyne Siraaya madaxweynaha madaxweyne Siraaya ayaa arki waayay oo madaxweyne Muuse Bixi baa arki waayay oo wasiiradii waxbarashada intaas oo dhan baa arki waayay inaga dhaadhicinayaan miya wasiiradii awqaafta iyo shuyuukhda culimada ma isaga uga lex jeclo roon diinta qof buu ku xumaynaya ama cid weeriyeenaya Soomaaliland berigii horena xaq daradii waxa lagaga xoreeyay qori in makana xaq darada iyo propagandada iyo beenta sharci in lagaga xoreeyo loo baahan yahay marka way dhaaftay heerkii loo dul qaadanayay oo fariibo wuxuu sharciga ka helu leeyay labada wasaaradood midna waxbarashada ay ka mas'uulka tahay midna ay wasaaradda diinta iyo awqaafka tahay waxay wada sameynayaan baaritaanka waxa ka soo baxa laamaha sharciga iyo cidda qosaysa loo gudbinaya sharciga wixii lagu kala helu leeyahay ciddii wax lagu helo baara lagu qaadaya wassalaamu calaykum